نجم كسر وفرعه باجوا كوبا كيتو غير كالسكاري كالسكاري كور أنا وقتي ما أنت جيبي آد قبول معه كالسكاري برعو إنه بعد معها أي برعو كلك أصحابته برعو وإنه بري مفاهيم بري أسألك دونات ولاية إيش برعو أي معنا سند كلام نبغى يس سند كلام يعني اللي ويني هدي لها كلكم يا وأنا قبل اللي جواه لكن رواية شيء أنا مكون سوال برعي شوكتا وحوي ولا قاعد لي ولا قاعد برعي شوكتا لان دير النمو كعلى برعي عليا إما كان ياك عليك ربعو وحلي شوكتا ولا هو ويلو كان حد سبيل شوكتا رتاجي شيء يعني قدرتها ولا هذا رمزة إنه بعد معها هرجيس وضربتي برعنا وضربتي أرجعنا وضربتي يس إنت كان يوم السبانة ده وأحكي لي يوم ما تقرأ تيك توك الرحمة روين تعال مجرى زوا لا إله إلا الله دير اللي aad iyo aad madaxweyne waa dhawahay wararka naga soo gaaray dhinaca iyo Burco ayaa waxay sheegayaan in gabadhii Mrs. ay ku sugan tahay guri kamid ah magaalada Burco qaybo kamid ah biliiska aan la xiriirnana ama dadkii goobjoogka ahaa halka ka agdhawaa ayaa noo xaqiijiyay in hadda ciidamo ay ku hareeraysan yihiin sababta loogu ciidamadu ay ugu urursan yihiin ay ugu hareeraysan yihiin ama ay u ilaalinayaan ay tahay sabab looga boqoyo gabadhan loogana shakiyay inay waxyaalo qaldan ama dawladda Soomaaliya ay u dirtay u soo dirtay Somaliland sida darteedna ay gabadhan ay wado sidoo kale waxyaalaha la xiriira qalqal amni darro oo dhinaca uga imaanaysa Soomaaliya inay la xiriirday sidoo kale inay gabadhan sirdoon tahay sidaas sabab la xiriira sababta awgeedna loo qabanayo ama loo xirayo dhowr jeer horena loo tarxiilay haddana ammaankeeda sidoo kale waxaa kaloo la xiriirnay qaybo kamid ah shacabka kaagdhow ee meesha ku soo dhaweeyay magaalada Burco iyagoona kuwaasina noo xaqiijiyay gabadhaas inay magaalada Burco ayna dhaafi doonin halkaana wiilkii ay jeclayd oo halkaa ugu iman doono halkaa la joogi doono ay halkaana waqti ku wada qaadan doonaan sida u jeedna ay u sii tallaabi doonaan sida magaalooyinka Burco iyo Ceelgaabo halkaas oo sidoo kale buurta daalo iyagoo halkaa sawiraan iyo dalxiis ay u tagi doonaan laakiinse arrintaas ayaan u saamaxi doonin waqtiga sidoo kale ciidamada hadda ku hareeraysan ciidamadaasna waxay rabaan inay dib u soo celiyaan ama inay xabsi ku hubiyaan ay baaraan gabadhan sababta ay u soo laalaabanayso arrimahaas ayaana soo gaaray wixii dambe ee wararna waa la soo socodsiin doonaa sidoo kale hal sano weydiinaya waxaad sheegtaa wararka ayaa ka soo baxaya oo kusinaya warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaybta waxaan leeyahay waxay ka soo gashay dhulka oo waxay soo martay Garowe ilaa Laascaanood bay soo dhex qaaday dadna waxay leeyahay waxay ka soo gashay qaybta Boosaaso oo bad bay ka soo gashay doon bay soo raacday oo qaybta Berbera ka soo gashay adiga warri xaaladii ugu dambeysay maxaad kala socotaa soo galitaankayga qaabkay ku soo gashay qaabka ay ku soo gashay soo galitaankeedu waxay ku soo gashay magaalada Laascaanood bay soo martay sidoo kale Garowe soo martay gaari bayna ku soo gashay magaalada saas ayayna ku gashay Burco adigu baabuur bay ku gashay waxay ka degtay meesha la yiraahdo Gaalgacyo ilaa iyo Burcana waxay ku mareysay sida loo sheegay baabuur bayna magaalada ku soo gashay sidoo kale warar kale ayaa naga soo gaaraya dhinaca iyo Muqdisho nimankii habar gidir oo iyaguna ballan ku galay haddii mar saddexaad gabadha la xiro in ay u kala dhammaan doonto iyaga iyo beesha Isaaq wararkaas ayaana iyaguna dhinaca naga soo gaaraya waa maasada wariye wixii soo kordha waad soo qabsan kartaa ila soo socodsi haddii la yiraahdo laakiin saacada ay nila hadlay walaalayaal ciidanka Soomaaliland ayaa ku harareysan gabadha Mrs. Wall saacadaha soo socda in la qabta ayaa la doonaya laakiin hadda barnaamijka intaan ku jirno ayaan eegi doonaa wariyaha waan ku noqon doonaa waxaan siinayaa samafale macallin ma siinaya soo dhaw samafale waan dhawahay walaal barakallahu fiik waan dhawahay horta Allah ku barakeeyo Suudaan waanaad ku mahadsantahay inaan qolkaaga maanta ka hadlo horta si guud haddaan u sheego anigu waxaan ahay nin Ciise Muuse na dhalay Sacad Muusena ah oo habara wala itmiin istaa macnaheedu waliba Sacad Muuse madaxweynaha dalka haysta ayaan isku jufanahay haddana waxaa dhacay dhakada waxaan u saarayaa ceebta waa ceeb u soo hoyatay madaxweynaha qaranka Somaliland ayaa mas'uul ka ah inantaa yaree markii labaad la tarxiilay markii saddexaadna iminka sirdoonkiisu doonayaan inay qabtaan oo ay aakhiro u diraan waxa kaloo in mas'uuliyadda alla leh markaan dhinac walba ka daba tagay madaxdii waraystay madaxweynuhu waa lagu mar walba waa la saaraa qiil walba hadii gurugubto madaxweynaha ka mas'uul baa la yiraahdaa mas'uuliyadda koobaad ee inantan qabashadeeda imikana la qabanayo horena loo qabtay waxa fuliyay oo fudeydiyay
oo tiktokyada iyo wasaabyada iyo eedanimco waxaan ku guurka yarga hawlan laba maasa haddii kaloo ku tuuraya eedanimco guurka yarga ku soco ها waxaa hawlahan waxaa fudaydiya nin aad baraha bulshada ka maqasheen oonu isku reernahay oo Sacad Muuse oo la yiraahdo Maxamed Bile waxa weeye waa ninka faanka badan ee yiraahdo diyaarad baa laygu shaqo geyn jiray jaamacadda Harvard baan ka shaqeyn jiray 7 af baan ku hadlaa ninkaas agaasimaha madaxtooyada ah ninka isku reer baan isna waa Sacad Muuse waa ninka ka shaqeeya eed walba madaxweynaha dhakada u saara wax walba suu sayr ka dhiga ninkaasi horta mas'uuliyadda koobaad isaga qaadaya walow aan rajeynayo anigu Facebook iyo meel walba isku jirno wada hadallo haddana halka waan ka cadeynayaa in adeernimo iyo riwaayadda looma dhinto marka waxa weeye sharaf dhac bay ku tahay Somaliland maanta waxa dhacday khaasatan waxay sharaf dhac ku tahay wadanka waa la wada leeyahay reer kale reer Sheekh Isxaaq oo maanta waxa gunnimo ah inkastoo gudinta daabkeeda oo ninka madaxweynaha Muuse Biixi hayo oo uu yahay nin aan naxayn oo aan kayd beersana oo cidna u joojinayn haddana waxa weeye waa maanta ceebta waa la wada leeyahay inanta yar ictiraafkii Somaliland ma dhaxday ku duubatay maxaa laga uriyay waxaan u noqonayaa in yar reerka ka dhalatay waa hawiye markaan abgaal Cismaan u noqdo waxaan xasuustaa dalkaaga daafac diidi ma abgaal ma waa habargidin maya ina waxaan xasuustaa magaca hawiye anigoo ka hadlay waxaan xasuustaa waqtigii dagaalku isaaqan ku socday habaarka Ilaahay qaba waxay yiraahdeen abgaal dalkaaga daafac diidi ma isaaq ku duulna dooni ma iyagoo sharbeynaya habargidir waxay ahayd dagaalkii ugu darnaa markuu ku socday ee xadka la weydaariyay عيديد بوها نين هبر جدره نينكي وهيليه وحقبته نينكي ديارها مينادو سارن تاي ليلي هرغيسا كو سو بابي بدا ku daadiyay Djibouti ka rogay wuxuu ahaa nin abgaala hawiye abaal weyn buu ku leeyahay maanta qowmiyadan reer Sheekh Isxaaq shalayna dulmiga ka xanaaqaysay maantana intay kibirtay in Allah la yughayyiru qawmu حتى يغيروا ما بأنفسهم إلهينا وحكولي إن الله يحب الحق وين حق لقى هذا reerkii shalay toddobaatadu haysatay ee Bayhofey maanta walaal waxay ku jiraan heer ay walaal ummadii shalay digriye midiflay ay xataa 3 saacadood u diideen alaabta ku urursadaan oo la saacanood ay kaga reereen madaxweynaha qaranku yiri aniga diray baabuurtii oo shidaal ugu shubay xaraan bay ahayd naxdintii ay naga naxeen suuqii weynaaye gobonimo waaheen waa kii ololay walaal ee la baqtiin kara waa Ethiopia timi iminkana dunuubtii tuka xun ayay sameynayaan bal inta yar ee miskiinada ee hawiye maxay geysatay waa taasi hadduu hawiye loo hiilinayo maanta oo hawiyenimo ay wax ku helayso daafiqishini waa nin deegaanka daga weeyaan waa habar gidir waa ay sanafalo waxa la soo qoray ninkan waa isaaq laakiin xamar buu ku dhashay ama ku soo barbaaray hal su'aalan ku weydiinaya hadda waxay ku soo tahay magaaladii Burco meesha lagu xidhayna habar awal bay had waa meesha aad ka soo jeedid ma laga yaabaa gadxajis in firahooga lagala dhex baxo oo laga dhex qaato gabadha